Dhawaan saaxiibayaal aad baan idin salaamayaa waa aniga iyo mar kale maanta waxaan noogu diyaarinayaa anoo idin tusayaa alaabta rabadaanka aan dalbaday. Halkan waxaa ku jira koobkaas oo ay ku qoran tahay Ramadaan Mubaarak. Allahumma baarak quruxdana waa buwaad yar oo dusha laga saarayo koobka. من أفرح بوي اسكو هذا نوع ما شاء الله تبارك الله. اللهم بارك رمضان مبارك أصحابي وكلا باديوني halkan alaabta shayn baan ka dalbaday waa eegayaasay soo baxaan xaggan waxaa ku dalbaday kii unsiga kuwan mid bakaar baan u dalbaday kuwan waxa weeyaan mindiga oo keeka lagu sameeyo halkan waa rabadaanka waxyaro waxbaa la saarsaarnaa rabadaan baa ku qoran dayaxi halkan waxa weeyaan harqada oo barkimada la gelinayo rabadaan mubaarak ayaa ku qoran maasha allah tabaarakallah. alaabta kala bar way iska fiicnayd kala badhna sidaan ku dalbaday maheen waxyaabo waxay noqdeen kale hadda kan oo kale boqolkiiba boqol weeye wax yar shumaca la dhex gelinayo way aad u qurux badan. kan waa bahalkan kan dalka nambarka la sursurayo daadka laga bedbedelayo rabadaanka bishii iyo maalintii baa ku qoran maasha allah tabaarakallah. la weeye kuwaasina waxay laydhka guriga lagu xidhiidhayo rabadaanka. kan waa tarayga marka soo xidhiidhaan tusi doonaa isaga waxaa ugu talagalay inaan rabadaanka saarto cuntada sambuska iyo waxaas. taray laba tabaq weeyaan kana kitaabka carruurta yaryaraan ugu talagalay inay qur-aanka u akhristaan rabadaanka wax iska cusub la iska jecel yahay ay ku daraasiyaan laydhwaaye kan waxa weeyaan shamaca la dhexgelinayaa isagana waa la isku xirayaa saas u bilaanay laakiin waa la isdhexgelinayaa koobo kala laga dhigayaa kadibna shamaca la dhex dhigayaa maasha allah tabaarakallah. kana waa laydh maqaacadahana waan dalbaday iyo fargeetooyinka kuwan iyagana waxa weeyaan kamarada gidaarka lagu xidhayo weeye rabadaan mubaarak baa ku qoran gidaarka loogu talagalay inaa lagu xidho waxaan dalbaday taqriiban waxaan u maleynaa 3 baan dalbaday wakaasab like saasay u weyntii maasha allah way maaragtay fiican tahay in waxyaaba ciyaalka ay ku dareemayaan rabadaan iska jooga la iska bedesho bisha rabadaan waxyaaba yaryar sharaxaada guriga lagu soo kordhiyo soo kana waa kaas kana xabad kale isagana uu ogyahay gidaarka lagu talagalay in lagu xidho xadhkaha ayuu wataa oo hareeraha lagaga xidhayo isku mid waaye kan iyo kii hore soo nice weeyaan maasha allah tabaarakallah. maro fiican quality leh qurux badan aan amaysina weeyaan dawakaas midna rabadaan mubaarak baa ku qoran qaarna rabadaan kariim baa ku qoran soo qoraaladii waxaas weeyara kala duwan yihiin laakiin sida kale same waaye waa isku mid soo maasha allah tabaarakallah. dhammaantii waxaa idin leeyahay rabadaan wacan oo wanaagsan saan rabadaan maalintay bilanin ka hor ayaan fideogan duubay laakiin ma soo gelin waxoogaa iska mashquulay iska waqtigan rabadaanka waa iska maaragtay cajiska iska badan ani ma garanaya rabadaankan waaba iska cajisaysanahay waaba iga adkaatay soo wataa taasina kan waa kii aan tusayo kale kana aniga dalbaday waxaan u dalbaday inaan qur-aanku kitaabka la saaro kitaabka saarsado soo kii carruurta aan tusay markii hore kiisiga ku walaaladii weeyaan kana waa mid oo eego kale oo aad iyo aad isna u qurux badan markaas waan furayaa insaas baa la isku dhexgelinayaa maasha allah tabaarakallah. kuwan waxaan way jilicsan yihiin kuwani I don't know inay saa wada jilicsan yihiin laakiin quality-giisa ma fiicna haddaba mid baa iga kala jabay markiiba soo quality-gooda aad iyo aad uma wanaagsana waa xiro la xiro aad iyo aad khafiif ah qof ilma haysta maaragtay ilmaha way
way iska cuskadaan, waxbay maaragtay iska si qaldan isaga qabtaan, way ku yara adkaanaysaa. soo shayna laabtiisa quality-geeda aada uma fiicna, laakiin waa iska maaragtay waa iska marxirasho ladhaa, marxirasho hal mar la isticmaalaysaa. sida arkaysaan baa kii hore huurigii ama talaygii hore oo kale walaalkiis waaye, waxoogaa ka yara waasacsan, waa laisku xidhxidhayaa, 2 dabaq baa laga dhigayaa. maasha allah tabaarakallah. kuwan aaday u qurux badan yihiin, walow aanay gees ahayn, quraarad maaha laakiin waa gees, waa beautiful. laakiin anisaa moodayay maaha, soo qaar waxaan moodayay dhooba ama de quraarada, laakiin dhooba maaha, waa wax yaro fudud oo geesa. soo simple weeye, waana nice, ma xuma. soo xaggan waxaa ku jira baaloonada dikoorka rabadaanka loogu talagalay, buufinaha yaryar iyo sharaxaada yaryar oo kale ay wada wataan oo laga soo laalaadinayo. maasha allah nice waaye, iyaguna qurux badan oo kale araga. kana isagana ku xiga, kan waxaa ku qoran rabadaan mubaarak iska dikoor. soo bibilayaasha waa kuwaas 42 xabaa u malaynaa inay yihiin, I think. soo way fara badan yihiin. kan waa kan rabadaan mubaarak lagu qoran. kan waxaa loogu talagalay in albaabka la sudho oo waqtiga rabadaanka, amba dee meelo kale waa iska saaran kartaa hadaa u baahna in albaabka sudhid, laakiin waxaa loogu talagalay asalkiisan alwaax yaroo fiican oo quality loo qurux badan oo maasha allah tabaarakallah aada u wanaagsan waaye. xargiisa yar baa ku xidhaysaa, de waa kaas. maasha allah tabaarakallah. alaabta aada u fara badnayd, qayb ka mid ah inay marsuudayn. asxaabeyga raalahaad hargab ay ku dhacay, waxayna la soo herli waaye hargab aawadi waaye. soo kan maasha allah nice waaye. alaabtaan keenay rabadaanka dikoorkeeda, kan baaba ugu shidan baan dhihi karaa. kan waa qurux, soo wuxuu wataa bahalka yar lagu istaajinayo, dabada saas baa loogu gelinayaa, hadaa uu soo kala jabay ma arkaysa. soo si fiican may soo protect garayn, waxooda waa iska jilicsan yihiin, haddana si fiican looma soo xidhxidhayo. soo intaasaa kasoo laalaadsantay oo soo jabtay. kan xaggaa loo gelinayaa dabada, abkay waa la istaajinayaa, qurux badan yahay maasha allah. miiskaan lagu sharaxanayaa amba taabalka yar ee gidaarka loogu talagalay aa la saaraya. maxuma qurux badan yahay, quality-giisa iska hooseeyo laakiin waa nice. maasha allah tabaaraka raxmaan. sida arkaysaanba waa kaas, so beautiful. maasha allah tabaarakallah. deer laga jabtay mahaane. alaabtii waa kan hadlo soo wada furfuray ee kuisha macyada lagu dhex ridayay. rabadaan mubaarak ayaa ku qoran, waxyaabo fara badan oo tarayada waa soo xidhxidhay, iyagana ka soo dhamaystiray. kan waa kii unsiga la saarayay, koobabka shaaha rabadaana ku qoran. miiska xataa bacdiyaan kusoo goglay. maanta bisha waa 17 February maalintaa duubay, laakiin hadda codka saaray rabadaanba waxaan quri waabay dhaaftayba, waxoogaa bay sii socotaa. rabadaan 10 waaye maanta u malaynaa, mise 11. maasha allah tabaarakallah. waxaan quri so beautiful, qurux waaye. kan waa kitaabka kii la saaranayay bibiyada yar baan ugu talagalay ilmaha. bacdan miiska xataa la saaray, iyo kan rabadaanka ay ku qoran tahay marada yar. bacdaa magaxijiisana waxbaygaga taabtaadan, asagana way ku jirtay. dee waa qurux maasha allah. alaabta intan walmaahay waxoogaa kala gidaarka intii aan ku dhadhajiyey